بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مادة تجويدك أهمانتي ومقدمة له. مقدمة سنحاول شكينا محل إلى تجويد سيقودها مركا أصول خلاصينا ودنا علماء القراء كأجنو. تجويدكو اصطلاحها وحوي علمي لغو قرتو إن لسيو حرف والبو قرآن كمده حقي سين لسيو يوحو متي وحو كشغيها إن وحواي لفظك قرآنك إن لها جاجيو أو خلد أنسى لغو أخرين لغونا أخري سيدي النبي قال لغاسو كلمي صلى الله عليه وسلم. waxaa la yidhahdaa waa carabkoo laga ilaaliyo inuu laxniyo kitaabka ilahay inuu laxni ku akriyo. kaas baa la yidhahdaa taxsiin qur-aankoo la hagaajiyo cod fiican lagu akriyo. xugun ahaanne khilaaf kama taagno inuu yahay fardu kifaaya, in lagu camal falaane ay tahay fardu cayn calaa kulli muslimin wa muslima. qof walba muslima inuu ku camal falane fardu cayn bay ku tahay. waayo nabigana calayhi salaatu wasalaam qaabku u akri jiray waxay ahayd qaabka tajwiidka ah. kaana sala allahu alay wasalam yurattil qur'aana tartiila. nabigu qur-aanka waa tartiili jiriyey asigoo ka amar qaadanaya aayaddii qur-aanka warattil qur'aana tartiila. amarka aayadda iskoo fulinaya oo alla subxaanahu watacaala usoo waxyooday ayuu qur-aanka ku akrinaya bitajwiid laa hadan walaa cajala bal qiraa'atan mufasaratan xarfan xarfa. nabigu qur-aanka si deg deg ahoo boobsiisa ma u akri jirinin ee wuxuu akri jiriyey si kala dhigdhigan xaraf xaraf u kala dhigdhigan ayuu akri jiray sala allahu alayh wasalam. wuxuuna dhihi jiray nabigu kaana yaquul yuqaalu lisaaxibi alqur'aani iqra' wartaqi. qofka saaxibulqur'aanka maalinta qiyaama waxaa leeyahay iqra' bal akri qur-aanka, fuulneh jaranjarta uu fuulaayey. warattil kamaa kunta turattilu fi ddunyaa. una tartiiba u xasili qur-aanka sidaa qur-aanka adduunka markaad joogtay aada u akri jirtay. fa ina manzilataka cinda aakhiri aayatin taqra'uhaa. manzilkaadii meeshaad degayso waa aayadda kuugu dambeysha ku akrisa meesha ku akrisa waayo. idan waxaa la rabaa marka qur-aanka in la tartiibiyo oo la xasiliyo anigoo ka amar qaadahayna aayadda qur-aanka kariimka ah. wa kaana yamuddu qiraa'atah. nabigu qur-aanku akrinahay waa madi jiriyey cinda xuruufi lmad. fayamuddu bismi illah waa madi jiriyey. wayamuddu arraxmaan waa madi jiriyey. wayamuddu arraxiimna waa madi jiriyey. muduuda ku jirta mar kalaan ka sheekay doonaa inuu mad yahay madu abiici. laba mad bismi illah allah kan ku jiro waa madu abiici. arraxmaan waa madu abiici. arraxiimna waa madu cari lisukuun. waxaan ugu tegi doonaa baabka muduudka insha allah. marka muqadim ahaan baan ka sheekaya nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhihi jiriyey zayinu lqur'aana biaswaatikum. qur-aanka ku qurxiya, codkiina ku qurxiya. fa ina sawta alxasan yaziidu lqur'aana xusna. codka wanaagsan oo hagaagsan qur-aanka wuxuu u ziyaadiyaa, u kobciyaa qurux iyo hagaaj iyo wanaag ayuu u kordhiyaa. walihaada mar kale wuxuu dhihi jiriyey laysa mina man lam yatagana bilqur'aan. naga mid maahan qofkaana qur-aanka ku qunaynin. marka qur-aanka wuxuu u baahan yahay in lagu quneeyo oo qunihiisiiyo la siiyo. qunuhu wuxuu kamid yahay xuquuqdiisuu kamid yahay. madku xuquuqdiisuu kamid yahay. qur-aanka xuquuqdiisuu kamid yahay. makhaarij alxuruf waxay kamid tahay xuquuqdiisay kamid tahay. tarqiiqa iyo tafkhiimka qur-aanka la waaweynahaya ra-da markay ka dhigan tahay
iyo tafkhiimkaas iyo tarqiiqaas xuquuqdiisa kamid tahay. waxaasoo dhan haddaan ku samayna marka qur-aanka xaqiisa maana siinin. qur-aankuna wax la guto kan ugu sarreeyo waa xuquuqda la guto tan ugu sarreysa waa qur-aanka. ولهذا إنها سنكسر ختمين مانتي. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.